madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu tacsi u diray isagoo ku hadlaya magaciisa ka dawladda kan shacabka Soomaaliland aqoon-yahanka waxgaradka waayeelka qoyska eheladii qaraabada iyo asxaabta iyo shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistee marxuum agaasimiye guud ee wasaaradda gaashaandhigga Mujaahid Cabdikariin Xaashi Cilmi oo habeenkii xalay ku geeriyooday dalka Hindiya oo xaalad caafimaad u joogay maalmahan dambe. madaxweynuhu wuxuu marxuumka ku siifeeyay dhaxaad ka baxay shacabka Soomaaliland kuna suntan taariikhda halgamadii kala duwan ee loo soo maray madaxbannaanida qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka mid ahaa odayaashii qaybta lixaad ee ka soo qaatay dib u dhiskii nabad ku noolaanshaha beelaha Soomaaliland wuxuuna xilal muhiim ah ka soo qabtay qaranka Soomaaliland waqtigan uu geeriyoodayna waxa uu qaranka u hayay xilka agaasimiye guud ee wasaaradda gaashaandhigga. madaxweynuhu wuxuu marxuumka looga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ciidamada qaranka aqoon-yahanka waxgaradka waayeelka qoyskii qaraabadii eheladii iyo shacabka Soomaaliland oo guud ahaanba ka baxay uu samir iyo iimaan saadiq ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.